hoogiya baba yimi dhulkii waa la haajiray hoogiya baba yimi dhulkii waa la haajiray hoogiya baba yimi oo dhulkii waa laga haajiray hijradii iyo dhibaatadii iyo meelihii la aaday waxyaabaha ay kalfeen waxa kamida in balaayo ay dhulkeeniina ka dhex dilaacdo oo gabdhaheeni yaraa oo quruxda badnaa oo Soomaaliyeed sharafta badnaana masiibadaani ka dilaacdaan idin tusi doono iyo la yaabkani dalalkii qurbaha ku yimina ayba khalaas noqdaan finish wallahi billahi tallahi rag wax intay soo fariistaan ay ka xishoodaan ragga intiisa badan ay ka xishoodaan baa gabdho isu quurayaan inay dhahaan cajiib bal waxbaan aragnay waxaan ila fiirshay hadda tusaale ahaan labadan gabdhood oo saasa oo noocaasa maxaa ku kalifi karaa waa maxay labadan gabdhood oo noocaas sameynaya maxaa ku kalifi karaa la yaab weey السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أصحاب تشرفت لي ومركلة يمقال عصب برتنا دي قد هانسان وبرتين كل مجرني ولا كامل يبرو آدي يد مهد سنتين كسو دوادا ميل اللي دينك عليها سي شير قريب برنامجك أصحاب تلا وداقة سي آد نقطتي داوضها وقوه الرئي أو وحا نسوق لنا آد نقال قيب قادتي سبسكرايب صار قنبلايل كان فرو انت كدي وحيابها نقما أها فول حمادة قبلها إيو فول حمادة ديو وحا أي سمين يانو نجاسة dadka aan xishoon inaan soo gudbino ulajeedkaygu ma laakiin hadafka iyo ulajeedka aan ka leenahay waa hal qura dadkan dad baa dhalay dad baa ehel u ah dadkaasi inay arkaan oo balqabtaan ugu yaraan wuxuu sheegaan in la waaniyo waxa laga yaabaa inaan waalidkood ka warqabin inaan dadkoodii ka warqabin inay waalidkood dhinteen inay ka dheer yihiin laakiin ehel kale ay leeyihiin dad celin kale ay leeyihiin qaraaba ay leeyihiin sababtoo ah qof kaliya iska madax banaan soo doon yeeli kara waa yariya hatta gabadha sina fareegaha ah oo aan cidna ka xishoonayn nin baa shukaansada ninkaas uun bay ka baqaysaa bay maaragtay ka xishoonaysaa ama si uun uga gabanaysaa gabdhahan marka noocaas sameynaya iyo kuwa la midka ah way soo bateen TikTok wuxuu noqday guri baay oo hoogay guri baay oo hoogay goola gabdhaha Soomaaliyeed lagu caayo lagu fadeexadeeyo iyagu isku qarxiyaan oo macnaha sumcad darro ku keenaan sharafkoodana looga ciyaaro ragga qaarkiis kuwa rag isku sheegana ay ku caayaan kuwa kale oo rag ah oo macnaha kuwa kale oo iyaga dumarka laftigooduna ay qaybtooda isku caydo qaybtooda ay sidii wax inay isbeecinayaan oo kale qaarkood sidii isbeecinayaan is iibinayaan oo kale inayba meesha isku keenaan waa la yaab waa in la arkaa waa in la yiraahdaa waryur haddii aan meeshii culimadii soo galin oo culimadii aysan wacdigoodii gabdhihii dhageysanayn in YouTubada qayliyaan in TikTok laga qayliyo war waxaan laga qabto gabdhaha war ka daaya heer waxa la maraya waxaan maqlayay nin carab oo yiri anigu waxaan u soo galaa TikTok baan leeyahay wax kale uma samaysan si aan gabdhaha Soomaaliyeed u daawado baan u samaystay sababtoo ah iyaga meesha jirkooda ku iibiya TikTok saasaan u soo galay heerkaasna waxa ina gaarsiiyay gabdho 2 iyo 3 iyo mid iyo bay ahaan jireen laakiin hadda waa ka bateen boqolaal bay marayaan boqolaal wallahi billahi tallahi cabaar ka hor waxaan arkayay 2 gabdhood oo wax nin ka xishooda ku hadlaya hebel markuu telefoonka ka soo waco oo saa ku yeelo maxaad samaysaa dhix hay xishoon mayso gabadhaas tan kale oo la weydiinayaana in waxyaabo ceeb la weydiinayo dumarku wuxuu ka xishoon jiray war nin baa ka xishoonaya aan oran karin nin baan oran karin war iska daa wax anigu hadda waxaan ka xishoonayaa kelmadii ay sheegayeen inaan dhawaaq ahaan u sheego baan ka xishoonayaa وأنا قاله
nin markuu kula hadlayo waxaas samayn baan ka sheekaynaya anigii baa ka xishoonaya inaa iraahdo wiilasha ragga oo dhan isku dar way ka wada xishoodaan xabad dhifa oo dhimatay ama dhintay mooyaane way ka xishoodaan ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka inuu caadi ka dhigo ummadda Soomaaliyeed meel walba waa ku ba'een oo waa ku hoogeen kuwa waxa lagu laynayaa South Africa iyo Mareykan iyo balaayo iyo Yurub kuwa dalkii dhexdiisa ay ku balanbaleen oo ku hoogeen oo lagu dilayaa qolaba meel bay ku kharibantahay alle ayaa u maqan ummadda Soomaaliyeed bal muuqaalkan muuqaalka xiga waa isla iyagii labadii weeye dabcan waa isla labadii baan jeclahay inay yihiin walaalnimo baa la soo saaray hees ah okay in laakiin gabar kale naasaheed korkeed ay ku seexato oo ay halkaa dul degto xigmad bay uga jeedaa waa fisqi in ay noocaa samayso waa wasakhnimo waa dhullinimo waa qurunimo weeye inay saa samayso macnaha waa macallimiin fasahaadin dadkan gaalada ah oo filmaanta xunxun oo galmada ah sameeya oo internetka ka buuxa iyagoo mudhaa iyo gacantaasa oo geedkoodii la sawirayo oo video saa looga duubayo oo meelba maxaa kalifay waxa kalifay markii hore waxyaabahan oo kale ay ku bilaabeen inay suuqa isqabsadaan inay iyagoo gabdhaha isku dhegdhegaan inay wiilal iyagoo hadhowna wiilal iyagoo iyo gabdho isku dhegdhegay ilaa dadkan cadaanka arkaysaan markii hore dad diin labay ahaayeen way soo socdeen waddankaana joogo Sweden ka soo qaad Sweden hadda dadka diinta leh oo diinta u nisba sheegta muslim iyo kristan iyo adigu diimayowga kala duwan marka la isku daro waxa ka badan kuwa aan diinta lahayn oo haddana Swedish baa ka badan aabihiis waxa laga yaabaa inuu kristan yahay hooyadii inay kristan tahay isagu laakiin waxa uusan aaminsanayn ilaahay inuu jiro aaminsanayn nabiyo uusan aaminsanayn cidnaba aaminsanayn u fiirso kuwan kristanka waxun bay aaminsan yihiin ilaahay inuu jiro waa aaminsan yihiin kuwaasa ka badan aan cidnaba aaminsanayn waxa maxaa heerka gaarsiiyay waxa heerka gaarsiiyay waa gabdhahan shafka isaga seexanaya oo aan xishoodkii baa laga tagay xishoodkay ka tageen meelahaas ay ka soo bilaabeen niman iyo naago afka iska dhuuqay say u wadeen inay suuqa keenaan wixii oo la helo gabdho dumaro iyo rag iyaga kamida oo firjiyadoodii ama xubnahoodii taranka la duubayo oo la soo bandhigayo lacag la siinayo in ay dhacdo oo dadka ay daawadaan oo arkaan oo aysan wax dhibaato lahayn oo ay u arkaan saa inta u fiiriyaan dhahan qaybtoodna ay u doontaanba inay daawadaan sidii inuu Allahu naxariis Ajax iyo Ilka Case iyo oo daawanayo waxa kuma laakiin macnaha hadda anigu markaan daawanayo Sooraan iyo Ajax iyo Allahu naxariis oo iga qoslaysinaya iska qaslayo oo kale ma dhib baan u haystaa aniga may qayb bay saa u noqotay marka qayb bay saa soo kale misaalkan ka wada qayb bay saa u noqotay marka waxana keenay horseedkii way waa horseedkii waa la arkay gabar tiraahda website baan leeyahay halkaas aad iga soo daawan kartaa lacag igu bixi mid xunaho tiraahda waa aragteen waxa imaan doona gabdhahani waxanay soo wadaan anigu ismalihi doqonnimay ka tahay ismalihi waaliba u geysay waxaan aaminsanahay in ay waxa soo kale soo wadaan ma fahanteen waxa soo kale inay soo wadaan baa aaminsanahay kuwan waxa la oran karaa waa iska maalaa yacni waa wax aan weynayn waa iska basiid baa la oran karaa hay laakiin wadiiqada yari wadiiqada weyn bay kugu ridaa hambabaro libaax bay soo wadaa waxa ay soo wadaan baa ka weyn war aan ka digtoonaano
gabdhahani wax wanaagsan ma samaynayaan iyaga iyo gabdho badan oo la mid ah waxaasna waa inaan laga digtoonaadaa waa in dadka wax laga wacyigeliyaa dadka youtuberada ah oo laga yaabo bulsho youtube-ka inta badan ummadda dadka daawada waa dad waaweyn waa dadkii dadka waxgaradka u ahaa dadka in badan oo ka midaan sheegaya ma aha iyagoo dhan in badan oo ka mid ah intaa badan oo ka midkaa waxaan ku waaninayaa si youtuberada waxaan ku waaninayaa in aad waxan oo kale ka hadashaan si bulshada dadka waxgalka ah ay u gaarto oo waxan looga hortago intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooli kulan